salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa Bulaal Media qodobada warkaaweynimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo ku dhawaaqday in la qaban doono doorashooyinka dalka waxaad kaloo warkaaweynimo Bulaal ku maqli doontaan diyaarada sidii ciidamada Harmacada oo gaaray magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa tiro badan oo ku degay dhulbeereedka degmada Doolow ee gobolka Gedo qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warka habeenimo isagoo faahfaahsan ku soo dhawaada aynu ku horeynay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo kulan la qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigren Hiirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish ayaa ku dhawaaqay in xukuumaddu ay go'aansatay in la guda galo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale loogu lumin shacabka Soomaaliyeed war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha uu soo bandhigay dadaalkii uu ku bixiyay sidii loo xalin lahaa kala aragti duwanaanshaha ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee qaban qaar ka mid ah dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa tilmaamay in shacabka Soomaaliyeed ay maanta sugayaan in la xoojiyo dowlad dhiskooda iyo horumarka ay xaqiijiyeen sanadihii la soo dhaafay si taas loo gulgaaro waa in dhammaanteen aan u istaagnaa sidii dhaqankii dimuqraadiyadda loo sii adkeyn lahaa dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor oo isna ka hadlay shirka jaraa'id ayaa yiri waxaa rabaa in aan halkan ka cadeeyo in wali aysan wax jawaab ah ka soo noqon saaxiibaday Puntland iyo Jubbaland dhaxdhaxaadintii aan halkan u imid iyo natiijadii wanaagsaneed iyo tanaasulka ay muujiyeen madaxda qaranka bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa in aan la wadaago in maalmahan dambe ay xukuumadda dadaal badan gelisay sidii loo xalin lahaa kala aragti duwanaanshaha ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee ay qabaan qaar ka mid ah dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta kale ka ra'iisul wasaare ahaan markii aan kalsoonida weydiisanayay golaha shacabka waxaan ballan qaaday inaan dalka gaarsiiyo doorasho loo dhan yahay oo jawi nabdoon ku qabsoonta kulankii aniga iyo madaxweynaha galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye aan ku yeelanay magaalada Gaalkacyo waxaan isla soo qaadanay inuu kaalin ka geysto wadahadallada lagu xalinayo tabashooyinka ay qabaan dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxa marar badan ku celceliyay in ay albaabadeedu u furan yihiin cid walba oo tabasho qabta ana diyaar u ahay had iyo jeer inaan tixgeliyo aragtiyada kala duwan ee la xiriira fulinta heshiiskii doorashooyinkii abraacidii lagu heshiiyey sidoo kale socdaaladeedii aan ku tagay maamulada Koonfur Galbeed Puntland iyo Galmudug waxay qayb ka ahaayeen dadaaladii aan ku doonayay in dalka doorasho loo jiheeyo wixii tabashooyin ahna si xilkasnimo leh in looga wada xaajoodo shacabka Soomaaliyeed waxaa maanta muhiim u ah in la xoojiyo dowlad dhiskooda iyo horumarka ay xaqiijiyeen sanadihii la soo dhaafay si taas looga guulgaaro oo 40 sanaba mar ay doorasho daafuran dalka uga qabsoonto waa in dhammaanteen aan u istaagnaa sidii dhaqanka dimuqraadiyadda loo sii adkeyn lahaa sidaa darteed walaalayaal xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay go'aansatay in la guda galo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale looga lumin shacabka Soomaaliyeed loogana fogaado wax alla wixii carqaladeyn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka lagu gaaray magaalada Muqdisho 17 September 2020 aad ayuu u mahadsantihiin billahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa tahay daawadayaal warkaas aad ka daawanaysaan waa Bulaal Media halkana Beledweyne diyaarada sidii ciidamada Harmacada oo gaaray magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan afar diyaaradood sidii ciidamada sida gaarka u tababaranaya Harmacada ayaa ka degay garoonka Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan diyaaradaha uu sidii ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaranaya Harmacada ayaa laga qaaday magaalada Muqdisho iyadoo garoonka diyaaradaha Beledweyne ay ku soo dhaweeyeen saraakiil ka tirsan ciidanka booliska hadalhayn badan ayay dhalisay ciidanka ay maanta dowladda Soomaaliya diyaaradaha ku geysay magaalada Beledweyne
iyadoo olamaha amniga dowladda Soomaaliya iyo kuwa Hirshabelle aysan faahfaahin ka bixin sababta ka dambeysay in ciidamo la geeyo magaalada Beledweyne. duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku sugan maleeshiyad uu hogaaminayay Jenaraal Xuud oo ka soo horjeeda qaabkii loo dhisay maamulka cusub ee Hirshabelle, iyagoo dhowr jeer diiday in madaxweynaha cusub ee Hirshabelle Cali Gudlaawe Xuseen uu ka tago magaalada Beledweyne, isla markaasna Beledweyne ay ka dhacaan dibadbaxyo looga soo horjeedo maamulka cusub ee Hirshabelle. sidoo kale Beledweyne ayaa waxay ka mid tahay goobaha loo asteeyay inay ka dhacaan doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo maalmihii la soo dhaafay Beledweyne iyo Jowhar ay ka dhacayeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayay. dowladda Soomaaliya ayaa horay waxay ciidamo diyaarada ku geysay magaalooyinka gobolka Gedo, halka magaalada Dhuusamareeb ciidamo la geeyay ay may ka saareen maamulka El Sunna ee ka soo horjeeda qaabkii loo dhisay maamulka Galmudug. lama oga talaabada ay qaadi doonaan ciidamada Harmacad oo ay maanta dowladda Soomaaliya ka dejisay magaalada Beledweyne, waxayna wararkan heleen ay sheegayaan in maalmaha soo socda ciidamo kale ay dowladda geyn doonto magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. haatana ayaa tiro badan oo ku degay dhulbeereedka degmada Dolo Soomaaliya gobolka Gedo. beeraleyda degmada Dolo Soomaaliya gobolka Gedo ayaa saa kuwa bariistay ayaa fara badan oo shal galabtii kusoo degay kaasi oo dhibaato baan u geystay dalagyadii kala duwanaa ay rajeynayeen beeraleyda inuu soo go'o bilaa soo socda. ma jirto qaab lagu hortago ama loo kiciyo ayaxa oo dhulka ku degay, hase ahaatee beeraleyda ayaa sameynayay isku dayo ay ku doonayeen inay ayaxa ku dulqaadaan beerahooda, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen inay durbaano ku qaraacaan oo markaasina ay ku qaaliyaan, taasina waxba loogama qaban karo mar hadduu ayaxu ku daldoogo beeraha. qaar ka mid ah beeraleyda beeraha maanta uu ku degay ayaxa oo warbaahinta la hadlay ayaa fariin u diray madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, kuwa gobolka iyo hay'adaha ku shaqada leh inay u soo gurmadaan beeraleyda gobolka oo sanadkan intooda badan wixii ay tabaceen oo la tagay ayaxa. Soomaali khaasatan beerta Garboolow baan nahay oon ku bayranay abuurkii beertu way noo dhalatay 3 qaybood, qaybo kala duwan baan saaranay, qaybii kala duwanay beertii oo dhex turnaas ayax saaka 3 sac naga qabto. waa tahay daawadayaal, qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warwixii dalka iyo daafaca caalamka naga soo gaaray. halka warka aad ka daawanaysaan waa Bulaale Media. warka weynimo caawa Bulaale waxaa idin la socodsiinaya anigoo Cabdinaasir Mansuur ah. haddaad page-ka ku cusub tahay fadlan like sar si aad u hesho warbixinada Soomaaliya iyo caalamka. intaas ayuu nagu eegay warwixii dalka iyo daafaca caalamka naga soo gaaray. intaan warkan oo kale ku kulmayno waxaynu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.